isbitaalka Yardameeli arintiisa ma aha arin hadda bilaabatay. isbitaalka Yardameeli waxaa dhistay hay'ad khayriye ah oo dadka macaawinada Turkiga ka soo aruurisay. waxaa loogu soo aruuriyay magaca dawladda Soomaaliya iyo dadka masaakiinta ah u baahan abaarihii ay waxyeeleeyeen waagi abaaraha ay dilaaceen ayaa loo aruuriyay. isbitaalka waxaa lagu dhisay macaawinadaas, waxaa lagu qalabeeyay macaawinadaas. sida meesha ka muuqata waa isbitaal loogu galay dadweynaha waliba hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya. isbitaalka markaan wasaaradda aniga imaaday waxaan sameynay isbitaalada danta guud dawladda ay leedahay ama danta guud lagu dhisay. waxaan weydiinay isbitaalka in aan helno shuruucda ay sheegayaan ee waddanka ay ku joogaan. ilaa iyo 2 sano waa dhowr jeer ayaan la hadalnay. wasiirka xafiiskiisa aniga wasiirka ah ayaa 2 jeer qoraal u sameeyay oo ku casumay inay noo yimaadaan ay nagala fariistaan. dheg uma dhigin kama weyna sharciga walaalahan Turkida waa dad aad iyo aad noo kaalmeeya, laakiin wasaaradda caafimaadka wasaaradda dawladda ayay guud ahaan ka go'an tahay inay daba gasho ay ogaato sharciyada ay meesha ku joogaan. dawladda markaan ku leeyahay dawladda waxaa mas'uul uga ah arrimaha caafimaadka, jaangoyntiisa iyo la socodkiisa waxaa wasaaradda caafimaadka ayaa mas'uul uga ah. Yardameeli mar walba waxaan ku dhiirigelinay inay nala xiriiraan nala fariistaan wixii sharciyad oo jira aan isla aragno la mariyo. sharci kama hayno ilaa iyo hadda. 2 jeer anaa xafiiskayga warqad u qoray, marka waxaan ka sugaynaa iyaga war saxaafadeedka saad aragtay ma aha wax shakhsi ah uu qoray, waa mowqifka wasaaradda caafimaadka oo waddanka ugu mas'uul ah caafimaadka dawladda ay u wakiilatay. war saxaafadeedka ka soo baxay waa mid mowqifka wasaaradda oo dhan saameeya.